وكنا يسود دقينا مكي النبي عليه الصلاة والسلام الله سحري نين يهودي ودن يراء والنبي قو أديق الجري عليه الصلاة والسلام أي يهود كما في السير وذكرنا يهود كعد صدين إن وأكينه نبي قتميهيسة يشان لدو كشان ليستو إلك كمدة الكهيدة ردوبان مت كمدة dadku waxay isweydiiyaan sidee yahuudu nabiga timihiisa iyo shanladiisa ku heleen wiil yar oo nabigu adaga yahuudi ah ayaa xogta gudbiyo yahuudi ay isticmaashay ninkaas nabiga timihiisi timo dhan ma aha marka la shanlaystay la feedho timaha go'ay ku hara shanlada ayay dhaheen nooke shanlada qudhigeedana ilkaheeda wax nooga keen hawshii buu qaaday yahuud buu u geeyay ninkii Labiid ibn Casam la oran jiray shaydaanka ahaa ayaa nabiga sixray sixir buu ku sameeyay timihii iyo garfaadhi jabtay iyo irbad oo mid walba ku muday iyo xarig dheer oo 12 meelood ka guntay waxba isku qoofalay guntin walbana irbad iyo qodax buu ka taagay hawsha markuu dhameeyay ceelkii la oran jiray Darwaan ayuu salkiisa dhigay timirta qolofkeeda ama ubaxeeda markuu dilaaco qubkiisaas uu oga dhigay weel iyo gal oga dhigay sixirki dhagax buu ku xidhay ceelka salkiisa u dhigay nabigu xanuun baa bilaabay qandho xanuun iyo sixir takhyiil baa ku bilowday saddex maalmood markuu nabigu qaabka u xanuunsanaa ayaa riyo ilaahay ku daaweeyay waru'ya al-anbiyaa'i waxyun isagoo jiifa ayaa laba malag u yimaadeen labada malag baa mid wuxuu yiri ninkaani maxaa haya hebelow wadaadkan jiifir rasuulka maxaa haya wuxuu yiri tubba innahu qad tubba waa la sixray iyaga isu jawaabay labada malag baa isu jawaabay nabigu waa maqlahaya waa jiifa maxaa lagu sixray wixii lagu sixray iyo cid sixirtay iyo sixirku meeshuu yaalo oo dhan buu kala sheegay nabigu waa kacay Caaisha la hadlay Caaisha miyaadan u jeedin rabbiga inuu daaweeyay oo la ii sheegay wixii ahayay iyo xanuunkaygii iyo sixirkii iyo dhibkii nabigu laba saxaabi uu darceelkii baa la tagay biyihii baa laga dhuray oo laga harqiyay salkiisii baa loogu tagay siday malaa'igtu u sheegeen markii la furfuray sixirkii nabigu waa caafimaaday sixirkii marka la soo helayba jibriilna dig buu soo yidhi labadan suuradood baa nabiga lagu dul akhriyay labada suuradood waa 12 aayadood mata misama isku dar labada suuradood 12 meeqa guntumad baa nabiga loo guntay 12 guntimihii nabiga lagu sixiray iyo aayadihii suuradaha isla ekaaday كتب السير والمغازي وكتب التفاسير حديثنا وكتب ضعف كجيره آيات والمركو أخريو إربط بافنين يسي قنتين ويفرميسي نبينا مر والبحود درمي عافمات زائدة إلى وحالات دي طبيعي قد قصوا اللابطي وعافمات تامة ووافئة إلهي سبحانه وتعالى أوسي لبدا صورة مكة ولبدا صورة أدو قيمة بدن وإن لبضيو ولا أخريو ولا اسكو داويو ولا عسكدو أي مهم تاي حنونسن هل لو أخريو إذنك حتى إذنك عافمات قبا إلهي سبحانه وتعالى كبريا وحل كبر يا رب سبحانه وتعالى كلام كيسا أبو خير بدن لو توصله هذا بديع تدوقور الله أخريو صدح جير الله أخريو أفرتن مربل البوض بديسو عافمات ديرا دريميسا عافمات ديرا دريميسا وحبال التجربة حكمية مع سورة الإخلاص والفلق سورة الناس والفلق صدح بقول صدني صدح جرنينك كآخرية حنون والبو هيو نفسه وكعاف ماضية بنية الشفاء نية حاضرة وجوكتنينك كآخرية صدح بقول صدني صدح جير هذا هو يسقبه قبل هذا أسي جيدا وانو تجابني وركان نقومكو عدان وانو آخرنا ضد إلهي وكو عافية استعمالا تدوي سقاطان نسدن به وقبل أسي جيستان بالله مر والبوض ما يسان إلهي بريا لكن سورة دماته وحمركا كوكو تاغن إله ساكد إله سدا أي الكلية كتب سورة سيوات صدح بقولي صدني صدح تيري نيكو عافي ماذانا
ujuuradu waa inuu ii keeno ma isfahanna hawsha khayr weeye